labadii maalmood ee ugu dambeeyay magaalada Jowhar sixir barar dhanka lacagaha ah ayaa ka taagnay maamulka Hirshabeel waxay sheegeen inay talaabo ka qaadi doonaan cidii diida lacagaha shilinka Soomaaliga haddaba wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Hirshabeel Maxamed Amiin Xaaji Aqiil ayaa sheegay inay talaabo ka qaadi doonaan cid walba oo isku dayda inay diido shilin Soomaaliga waxaana uu sheegay in Arinkani ay wadaan ganacsatada gaar leh maalmahan waxa jiray maadaama aniga hadda wasiir ku-xigeenka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha aan ahay maalmahan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ama Hirshabeel oo dhan in lacagtii shilinka Soomaaliga ee dhibaato la geliyo ama qalqal qolo ganacsato oo gaar ah oo dana gaar ah wadata in ay qalqal geliyaan lacagtii shilinka Soomaaliga waxaan leenahay qolada danta gaarka wadato ha ka waantoobaano gobolka Shabeellaha Dhexe xaqiiqdii iyo Hirshabeel oo dhan waa dad isku xiran waxaan xasuustaa gobolka Shabeellaha Dhexe isbuucii hore waxaan kormeer ku soo sameynay goobaha lacagta lagu sarifo kormeerka aan soo sameynay waxaan soo aragnay lacagtii shilinka Soomaaliga iyadoo jaxjaxan in la qaadanayo haddana ay dadkii isticmaalayaan xaqiiqdii kormeerkaas waxaan u sameynay inaan ku soo ogaano lacagta shilinka Soomaaliga heerka uu joogo markaan ogaanay gobolka Shabeellaha Dhexe lacagtii oo jaxjaxan inay isticmaalayaan waxaan u mahad celinay Allah subhanahu wa ta'ala maxaa yeelay lacagtaas oo jaxjaxan oo dhimatay in qofka inta ka jaxan la dheheen oo la isticmaalayo ilaaha mahadaas iskale reer gobolka Shabeellaha Dhexe waxay ku dadaaleen in ay ii sheeg wax laga sameeyay lacagtaas oo tafaraaruq ah marka waxaan leeyahay barnaamijyadan ii sheeg maalmahan soo cusboonaaday Hiiraana maalmihii hore aan naxtin ugu dilaysay oo AVC shaahiga lagu cabaal dhahay haddana alxamdulillah ilaaha nooga gargaaray lacagta shilinka Soomaaliga caadi u socotaa wax dhibaato ma ka jirto sida maamulka gobolka iyo kan degmada iyo saraakiisha ciidamada ay u sheegeen cid alaaliyay cid carqalad ku keentay in shilinka Soomaaliga dhibaato u geysato waan iska qabanayna sharcigan horgeynayna waxaan leenahay baarlamaan oo sharci dajiye ah waan horgeyn doonaa ilaahay idinkiis cid kasta oo dhibaatada samayso Baxsan Ibrahim Abdi Baxsan Bilan TV-ga dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya magaalada Jowhar